ninkaana u jeedin gabadhan ay qadka iska barteen kadib gurigeedii ku balamisay markii albaabka ka furtay waxay ku dhehaysaa maxaa way adiga saa'id u gaabantay isna waa kanahay uu mahad celina gaarigan intii aragtay waxay weydiinay gaarigaas adiga miyaa iska leh ha ku dhaha markii aragtay midkan inay u kala kacsan tahay u bixi uu gacanta ku hayay ka qaadanay waxay ku dhehaysaa haddii aad rabtid inaan ku raaco way wadaysaa waxaan ay geelaysaa maqaayadaha ugu qaalisan magaalka ku yaalo isna waa kanahay dalabkeeda ma ka diidayo oo ogolaana markii ay maqaayada yimaadaan taleefankeeda isku mashquulinay isaguna wuxuu weydiinay adiga xagee ku soo kortay waxay u sheegaysaa su'aalaha noocaas oo kale inay caajis yihiin iyaduna aysan rabin inay caajisto kadib maqaayadii waxaa imaanaya kuwa saaxiibadeeda waxay isku dayaysaa inay ka dhuumato laakiin gabar saaxiibadeeda kamid ah arkayso meeshii ay ku dhuumanaysa intay ka soo baxday saaxiibadeed waxay weydiinay meesha maxaa ka sameynay waxay ugu jawaabaysaa meeshan arrimo ganacsiya u imaada ninkan u jeedina booskayga waaye intaas kadib meeshii waxay isku baranayaan ninkan ay saaxiibadeed qaraabada yihiin isbarasho kadib waxay ku dhehaysaa isiisig waa ka daba imaanaa marka arrimaha ganacsiga soo dhamaystay markii uu baxa midkana wuxuu weydiinaa arrimaha horteeda ku sameynaysa mujeedid miya waxay ku dhehaysaa aniga waxaan u baahanahay nin kala kacsan oo shaafta heesta oo weliba dheer laakiin adigan aan hadda kula hadlayo intii aan soo sheegaba maba tihid marka sidee macquul ku tahay qof anigoo kale ah inuu banaanka u soo raaco qof adigoo kale iyadoo qaylinaysana kor waxay u dhehaysaa adiga waa gaaban tahay asna waa kana lacagtii ay cuneen intuu miiska saaro wuxuu ku dhaha waxaan kuu rajaynaa qofka raadinaysid inaa hesho meeshan uu isaga taga markii uu taga saaxiibadeed oo meeshan kusii sugayay kusoo biire isla maalintii xigtay midkii ay saaxiibadeed qaraabada ahaayeen guriga ku balamisay way soo baxayaan iyadoo u malaysa inuu midkan yahay midkii ay raadinaysay laakiin iyagoo sheekadooda wato midkan wuxuu bilaabaa inuu ku mashquulo gabdhihii kale maqaayada jooga habeenada kamid ay intay soo baxday gurigiisa ugu imaanay waxayna arkaysaa inuu gabar kale la joogo midkii hore maadaama ay gaabni uga tagtay midkan waxay uga tegay khiyaano laakiin sidaas maysan ku quusan oo maalin kasta waxay raadinaysaa nin iyada ku habboon waqti badan waxay ku bixisay inay niman kala duwan maqaayad isku raacaan maalinay midkan maqaayad isku raacayaan waa kuwana iyagoo labadooda isla fadhiyaan laakiin midkan wuxuu u dhexeeyaa mar uu taleefankiisa ku mashquulsan yahay iyo mar uu ku mashquulsan yahay gabdhihii kale maqaayada joogay waxay weydiinay ma ii jeedid miya aniga meeshaan joogay intuu soo istaago wuxuu ku dhahaa macquul maahan arrintan waxay u egtahay mid aan sii socon doonin markii uu tegay waa tanaa keligeed iyadoo meesha fadhiso xooga ay meesha fadhisa waxaa u imaanaya ninkii ay maalin dhawata gaabnimada ku nicaysay waxay ku dhehaysaa ma soo koobi kari intii jeer aan isku dayay in aan helo ninkii aniga igu habboonaa wuxuu weydiinaa horta adiga waxaad ii sheegtaa ninka aan raadinaysa iyo sida uu egyahay waxay ku dhehaysaa sidaa hore kugu sheegaba waxaa raadinaa nin dheer oo kala kacsan oo mushaar badan qaato wuxuu ku dhahaa intaas aad soo sheegtay haddii aad nin ka raadinaysa waa huba ugu dambayn iyo jaway kusoo dhammaan doonaan waxay taagan tahay kelinimada caadi waaye xitaa adiga markii akaatiga keligaa soo matid hadda faraanti uu wato intoo tuso wuxuu u sheegaa inuu isagu mar hore guursaday mar labaad waxay taagan tahay waa huba middaa guursatay waa foolxumad iyo socoto laakiin isla waqtigaas ay sheekada wateen waxaa imaanaya ninkan xaaskiisa iyaduna way yaabay markay aragto qofta oo ninkan guursaday waxay ku dhehaysaa haddii aad su'aal ku weydiiyo qoftaas u jeedid xaaskaaga miya haaha ku dhaha waa saxan tahay xoogaa waanana uu u raacinaa kadib meeshii uu isaga taga muuqaalkan intaasoo ka ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnosa soo dhawaada ninkan gurigiisa oo imaana isagoo qaylinaayo kadib gabadhiisa intay ka hor timaado wuxuu ku dhahaa taaban adiga gabadheeda ma tihide isla markii xaaskiisa intay meesha soo gaartay waxay weydiinayeen maxaa qaldan wuxuu ku dhahaa aniga isbitaalka ka imaaday waraaqadana u jeedidna waa tijaabada DNA-ga markii aan baaritaan kusoo sameeyey DNA-ga wuxuu sheegaa gabadhan inaan anigu dhalin kadib midaan waxay weydiinaysaa arrintaas sidee macquul ku tahay laakiin meesha waxaa imaanaya midkan hooyadiis waxay taagan tahay naagta mar hore ka shakiyay waxaana dareemay inay wax qarinayso kadib midaan gabadheedii intay wadatay dhinaca isbitaalka aadaysaa si ay hadalka midkan usoo xaqiijiso isbitaalka markay yimaadaan mar labaad tijaabada DNA-ga sameynayaan dhakhtarkuna wuxuu u sheegay inuusan ninkan gabadhan dhalin midkan markuu hadalka dhakhtarka maqlo wuxuu bilaabaa mar labaad inuu gabadha ku qayliyo laakiin dhakhtarka wuxuu ku dhahay isdeji iyada xitaa maysan dhalin gabadha labadooduna waa kuwan ahe way yaabayaan midaan dhakhtarkay waxay weydiinaysaa laakiin arrintaas sidee macquul ku noqon kartaa gabadhan anigaa dhalay waa hubaa weliba magaaladeena isbitaal ku yaala ku dhalay asna wuxuu ku dhahaa waa ka xumahay tijaabada DNA-ga been ma sheegi karto haddii aan qiyaasana waxaan u maleynayaa in isbitaalka ah gabadha ku dhashay ay idinkugu bedelantay arrintaasna waa mid caana badanaan isbitaalada magaaladeena ku yaala wuu ka dhacaa kadib midkan dhakhtarka wuxuu weydiinaa haddii ay arrintaas macquul tahay marka sidee gabadheeni saxdayd ku raadsan karnaa hadda wuxuu ugu jawaabaa hadda inta baxdiin waxaad aadeen isbitaalka aad gabadha ku dhasheen iyagaa xali doona arrintiinne intay soo baxaan ay isbitaalka imaanayaan kadib gabadhan dhakhtaradaha u imaanayso waxay ku dhehaysaa waa ka xumay inaan warkan idiin sheego laakiin waa saxantihiin gabadhiina isbitaalkan idinkugu bedelantay wixii hore beenay haddeer si dhaba u yaabayaan midaan waxay taagan tahay oo haddama waxaad leedahay gabadhii aad 10 sano korinaysa adiga maada dhalin waxay ku dhehay isla maalintaas iyo isla waqtigaas gabar kala dhalatay marka hooye waraaqadan hadda qaata waxaa ku qoran hooyada gabadhaas dhashay xogteeda haddii aad dhinaca maamadaas dhibaato kala kulantiin isbitaalka dhexdiina soo geli doono dhinaca kale midaan waa hooyo gabadheeda u diyaarinaysa iskuulkeeda waxay ku dhehaysaa hadda lacag ma haysto laakiin markii aan shaqo helo aniga ka bixinayo dalxiiska lacagta aad ardada kale ugu raaci lahayd xoogaa kadibna way ku guuleysanaysaa inay hadalkaas gabadheeda ku qanciso albaabka waxaa soo gargaraacaya marka kuwii ay dhakhtaradu soo dirtay markii albaabka ka furto hooyada ma nugu wici kartaa ay dhahayaan idina way igu wici intay timaaday idinku maxaad rabtiin weydiine waxay ku dhahayaan meeshaan waxaan u nimaanay inaan arrin yar kaaga la hadalno arrintaasna wax kale ma ahan kaliya gabadhaadii ku saabsan tahay waxay
bilaabaysaa marka inay gabadheeda iskuulka u dirto midkaana wuxuu taagan yahay oo hadda keligeed miyaa iskuulka u dire gabadha iskuulkeedu meelahan uu ka dhow yahay ku dhehaysaa midaana shaqadiina maaha gudahii intay soo galaan waxay isku dayayaan inay arrintii ka dhaadhiciyaan laakiin iyadu waxay ku dhehaysaa waxaan oo dhan waa been laakiinse midkaana wuxuu u sheegaa in marnaba tijaabada DNA-ga aysan been sheegi karin marka gabadhii aad adigu dhashay meel kale ma jirtee waa midda annaga xaafadda noo joogto midda nin adiga haysto intay soo baxaanay gurigooda imaanayaan si ay gabadhooda arrintaa uga dhaadhiciyaan dhinaca kalena hooyadii gabadheeda markay iskuulka ka timaado waxay isku dayeen inay arrinta ka dhaadhiciso midaan arrintii markii loo sheegay waxay dhehaysaa waxas been waaye ay idinku sheegaysiin anigu waxaan rabaa inaan weligii idinka ilin joogo subaxdii kale way isku imaanayaan si ay gabdhahooda u kala bedeshaan laakiinse labadooduba kuma qanacsana inay waalidiintooda ka tagaan kadib saddexdooda meel geesay u soo baxayaan si ay arrintan uga tashtaan midaana waxay soo jeedinaysaa inay dhammaantood hal meel ku wada noolaadaan si ay gabdhuhu si tartiiba ula qabsadaan waalidiintooda cusub ayaguna talada ay midaan soo jeedisay waxay u arkayaan talada ugu macquulsan midaan waxay arkaysaa in hooyadeed cusub ay kari taqaana cuntadii ay jeceshahay kadib dhammaantood intay soo guuraan ee hal guriyo weyn soo degayaan si ay ugu wada noolaadaan muuqaalkana intaasoo ku ekaya hadda halkaas soo gaarta legnoosa soo dhowaada ninkaana u jeediin caan waaye iPhone 17 intuu soo qaatay isagoo muuqaalo iska dudubaya naagtan hadaladiisoo dhan maqle kaamirada dhexdeedu wuxuu ka arkaa naagtan dhinaciisa gadaala taagan oo ismashquulinaysa kadib wuxuu weydiinaa marma waxaa ka caawiya waxay ku dhehaysaa su'aal haddii aan ku weydiiyo taleefankaas aa gacanta ku haysid iPhone 17 miya haaho ku dhaha shaki miyaa kaaga jira ma u jeedido waxay weydiinaya taleefankan sidee ku heshay weli mausa soo bixina mise adigu waxaa tahay nin taajira wuxuu ugu jawaabaa maya waa jeclaan lahay inaan sidaas ahaado laakiin anigu waxaan ahay nin muuqaalo soo gudbiyo taleefanada cusub ee soo baxaan qiimeeya marka sidaas waxay ugu fududaatay inaad taleefankan helo waxaa jira nin aan saaxiibo nahnay oo meel meesha degan asagaana taleefankan si free igu soo siiyey lacag 100 intay soo bixisay waxay ku dhehaysaa saaxiibka dhalashadiisa waaye taleefankan hadiyad ugu dhigay igu soo wareeji 100 qaado isaguna wuxuu u sheegaa inuu taleefankan inta uu soo baxay iska sugato sanadka dambe markaasna ay saaxiibkeed u geedo lacagtii ay heeday 200 ka dhigay laakiin isagu mar labaad uu diiday inuu lacagta qaato waxay u soo jeedinaysaa maadaama uu taleefankan si lacag la'aan uu ku helay inuu lacagtan iska qaato isagu wanaagsan tahay laakiin isagu ugu dambeyn wuxuu ku dhahaa taleefankan 1500 oo ka badan yahay adigana 500 ku rabtaa ordaga tagmeeshina wuu isaga tagaa gaarigiisa uu inta galo xoogaa uu wadada ku sii socday wuxuu arkaa iyadii mar kale hortaagan markii uu weydiiyay sababta ay hortaagan tahay waxay u sheegaysaa inay lacagta $1 ka soo dhigtay uu taleefanka ku soo wareejiyo wuxuu taagan yahay waxaan oo dhan taleefanka dartiisa miyaa u sameynay lacag badan ay haysataa inta taleefanka iska diiday saaxiibka waxa uu wadaa dalxiis laakiin iyadu wali waxay ku adkaysanaysaa inay taleefanka rabto wuxuu u sheegay inuu booliska u wacayo intuu gaarigiisa galay iyadina waa tarahay ma baxaysay gaarigeedii ku dhex sugayay booliskii markii ay taleefanka ka qabteen wuxuu ku dhahaa naaga ay daba dhigatay ma aqaan wixii daba dhigay iga soo gaara markii aragtay inuu booliskii rurumay u wacay gaarigeeda intay soo wadatay kiisa ku dhufanay intii uu ku mashquulsanaa gaarigiisa wixii ku dhacay intay soo daba martay taleefankii meesha ugu jira ka baxsanay xoogaa kadib meesha waxaa soo gaarayay booliska oo midkaan hore u wacay askarigana wuxuu weydiinaa dhibaatadiina maxaa waaye soo hadla waxay ku dhahay anigoo gaarigayga iskaga dhex jiro midkaan gaarigiisa igu dhuftay haddana dhuunta way xanuunaysaa waxaan u malaynaa inay wax iga soo gaareen ninkii wuxuu ku dhahaa markaaga waaye soo hadal adigana wuxuu u sheegay isagoo taleefan iPhone 17 iska wato oo fiideo iska dudubaya inay iyadu u imaatay gadaashidii intay soo istaagtay waxay ugu dhahday taleefankaas sida u heshay weli moosa soo bixinay markii aan u sheegay taleefankan inuu mid saaxiibkay isiiyay waxay ii soo bandhigtay lacag si aan taleefka uga gato markii aan ka diiday lacagtii ay ii soo bandhigtay waxay bilowday inay gaarigeeda igu dhufato taleefankayga inay iga baxsato kadib aniguna waxaan go'aansaday inaan idin soo waco mar labaad askarigu midkan wuxuu weydiinaa taleefankaaga xitaa ma kaa xaday haaho ku dhaha muuqaalkan xitaa waa daawo kartaa waa markii ay gadaashiida taagneed anigana aan muuqaalka iska duubayay marka hadda qoftan waxa weydiidaa qofka meeshaas taagan iyadii miyaa mise waa qof kale markii uu askarigu weydiiyo qofkan yaa waayo waxay taagan tahay aniga maahan waxaa laga yaabaa inuu sawirkayga helay kadib oo AI ku sameeyey gaarigaaga ma baari karaa ku dhaha laakiin iyadu waxay isku dayaysaa inay u diiday in gaarigeeda la baaro kadib askarigu ma dhigaysaa hadalkeedii wuxuu bilaabaa inuu gaariga baaro kursiga hore una keelaa taleefankii intuu soo qaado taleefanka wuxuu ku wareejinaa midkii iska lahaa iyadana intuu xiro wuxuu u sheegaa inay tuuga tahay dambigeedana uu ku cadaaday markii la sii wada askariga waxay u sheegaysaa in saaxiibkeed uu hadiyad kala kacsan ka sugaya inay dhalashadiisa tahay muuqaalkan intaas ku ekaya dalka soo gaarta legnoosa soo dhowaada gabadhan waxay ku faraxsan tahay maadaama natiijada inay uur leedahay ay u soo baxday isla markii intay aragtay ninkeeda iyo walaasheeda oo isla socday u imaaneen waxay ku dhehaysaa hadda wax walba oo aad samayseen waa arkay khiyaanadiinana familka oo dhan u soo sheega ninkeedu inuu celceliyo isku dayaa laakiin iyadu way ku adkaysanay meeshina way isaga tagay intii ay wadada ku sii socotay shilay gashay waatana isbitaalka jiifta iyagiina way u yimaadeen midaan waxay taagan tahay haddii ay soo kacdo baxariina gelinaya marka intay soo kicin waa inaan meesha isaga tagaa laakiinse dhakhtarka u imaanayo wuxuu weydiinaa ma fiican tahay goormaysa soo kacee wuxuu ku dhahaa ma naqaano xilligii soo kacayso laakiinse maadaama ay uur leedahay waxaa laga yaabaa inay bilood meeshan ku jirto midkaana waa kana ay xaaskiisa inay uur leedahay hadda ogaaday xoogaa kadib intay soo kacday iyagii waxay ku dhehaysaa idinku yaa ahaydeen halkaana maxaa u jooga midkan walaasheeda wuxuu ku dhahaa orod dhakhtarka u soo wac waqti yar kadibna waa kana way keentay dhakhtarku kuwaan banaanka intuu u saaro midkan gabadhii wuxuu ku dhahaa maxaad u faraxsan tahay dhibaata noo taalo waa u jeedaabe waxay u sheegaysaa iyada inay xusuusta ka luntay haddana aysan ogeyn wixii ay iyagu hore u soo sameeyeen dhakhtarkii waa kan iyagii intuu u yimaado wuxuu ku dhahaa iyada xusuusta ka luntay hadda kadibna wax ma xasuusanayso waxaana laga yaabaa waqti aad u dheer inay sidaan sii ahaato meeshina way isaga tagaa midaan markii hadalka
dhakhtarka maqashay aad u farxay 2 asbuuc kadib waa kana uu soo waday gurigii oo keenay iyaduna waxay la yaabantahay sawirka ay ninkan isla galeen wuxuu ku dhahaa waxaan rabay inaan guriga ku soo kala tuso laakiin dhakhtarku wuxuu dhahay ha nasato maadaama uur leedahay haddana sariirtii aad ku nasalahayd dhinaca sare saaran tahay ee soo bax waa ku geenay markii ay kor yimaadaan wuxuu u sheegay inay walaashid u imaanaysa inay ka taxadari doonto walaashina markay timaado isagu ma la hadlayo uu ku adkeenay iyaduna waxay go'aansanay inay dhinaca sare aado walaashid markay u timaado salaan kadib waxay u sheegaysaa inay baxayso in quraacda u soo sameey doonto kadib iyadu waxay bilaabaysaa in sawiraantii guriga taale ay fiirfiiriso maadaama ilaa iyo hadda aysan aaminsaneyn inay ninkan isqabaan dhinaca hoose intay u soo degtay walaashida cunno karinaysa waxay ku dhehaysaa su'aal ma ku weydii karaa waxaana ka rabaa su'aashaas aan ku weydiinayo inaad si sax iga jawaabto daacadnimo midaan iyadoo naxsanay waxay ugu jawaabaysaa soo sax way weydii kartaa wixii aad rabtid waxay ku dhehaysaa shilku intoosan dhicin aniga iyo ninkan guurkeenu sidoo ahay wax badan miyaan isdagaali jirnay mise waxaan ahayn labadeena heshiis caadi ah isagu wuxuu u muuqdaa inuu nin wanaagsan yahay laakiin anigu ma aqaani inuu iska dhigaayo inay daacad ka tahay aniguna ma dareemayo inay wax walba caadi yihiin laakiin waxaan u maleynayaa inay wax badan qaldan yihiin waxay u sheegaysaa isagu inuu nin wanaagsan yahay dhakhtarkuna uu ku dhahay su'aalaha badan iska daayay cunnadaada cun midkiina waa kana intuu yimaado wuxuu ka warsanaa xaaladda cunug yar ee caloosha ugu jiro laakiinse iyadu si caday waxay ugu sheegaysaa inaysan ilaa iyo hadda aaminsaneyn inuu wiilkeeda aabeed yahay maalin kale bannaanka intay isku qabtaan waxay u sheegaysaa inay rabto hadda kadib furriin iyagoo isaystaa meesha waxaa soo gaaraya walaasheed waxay u sheegaysaa inay xilli fiican imaatay haddana aysan iyadu rabin inay meeshan sii joogtay rabto inay baxdo soo baxay ku dhehaysaa diyaar waaye laakiinse midkan hal mar wuxuu iska soo jaraa wax walba oo runa u sheeg midkan hadalkiisa dhegeysin wuu waaliyahay ku dhehaysaa inakeen hadeertaan waa baxaynaaye kadib isagiyaa go'aan hore ka qaadanaya wuxuu u sheegaya inay iyada qiyaamayeen kahor inta aysan shilka gelin midaan meeshii isaga tegay markay ogaatay inay baxad gashay midaan kalena waatana boorsadeedii soo qaadatay midkii saaxiibkeena ahayna labadiiba wuu waayey muuqaalku intaas ku ekaadaal ka soo garta leeg noo saar